muqdisho iyo banaadirba waa hooygii ummadda waa mideeyihii dalka waa xaruntii midnimada waa daartii ugu horreysay ee ay Soomaaliya ku soo hilowday ku midowday waqooyi iyo koonfurba kastoo Soomaaliyeedna hooy iyo u noqotay guri waa astaantii midnimada qaranka marka way istaahishaa 13 xildhibaan iyo wax ka badan in ay helaan caasimaddu sida Ilaahay u doortay labada xaram dhulka guud ahaan adduunweynaha aynu aragnay laba buqcadood oo barakaysan oo uga doortay Maka iyo Madiina ayaa Ilaahay qadaray una doortay inay u noqoto Soomaali xarun 60kii isugu yimaadaan ku midoobaan caasimadda ummadda Soomaaliyeed noqoto mar labaad burburkii kadib muqdisho waxay nasiib u heshay in ay haddana 10 sanadood oo jahawareera shirkii carta 2000 markii la isugu yimid inay mar labaad hooy u noqoto iyo meel ay Soomaaliya ku soo hilowdo ku midowdo caasimadoodii dib u soo haybiyaan isuguna yimaadaan dawladnimada maanta aan harsanayno ee hana qaadaysa oo aynu dib u dhisayno oo tiyaatarkan shirka caawa aynu ku qabsanay stadiumkii aynu daah furnay iyo 2000 ilaa hadda dawladnimadeenu horumarka ay gaadhay inay noqoto hooygii isugu keenayay Soomaali ee dib u mideynayay dib u mideeyay mar labaad inay noqotona nasiib bay u heshay marka waxaan leeyahay hambaliya mar labaad muqdisho matalaad way heshay 13 iyo wax ka badan ba way istaahishaa maqaamkana qodobka 9 ee dastuurka ayuu ku xusan yahay awoodaha golaha shacabka ama baarlamaanka awoodda u leeyahay weeye xukuumad ahaan iyo dawlad ahaan iyo dhammaanteenba iyo gobolka banaadirna waan ka wada shaqaynaynaa marka labaad waxaan leeyahay hambaliya golaha shacabka inay ku dhiiradaan golayaashii horena ku dhiiran waayeen inay matalaad siiyaan una gartaan go'aamiyaanna muqdisho gobolka banaadir inuu matalaad helo waxaan ugu hambaliyeynayaa mar labaad golaha shacabka inay tixgeliyaan codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 6 bisha Juun khudbadiisii labada gole uu uga codsaday in ay ansixiyaan matalaadda gobolka banaadir inuu ka helo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobka saddexaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya waa nidaam baarlamaaniya isku dhex jira madaxweyne iyo baarlamaaniya laakiin baysku uu yahay baarlamaanka shacweynaha Soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen iyagoo ka wakiila golaha shacabka ay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo ay sii wakiishaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo cumaamadaa oo uu fulinta u igmadaa ra'iisul wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad intaasoo dhan marjacoodu min madaxweyne ra'iisul wasaare xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka accountable yihiin bayska siyaasadda Soomaaliya marka siyaasadda Soomaaliya waxa haga baarlamaanka waa nidaam baarlamaaniya golaha shacabku budug weyn buu ka yahay aasaas dawladnimadeena baarlamaanka oo ah saldhig u ah marjaca sharcigu uu ka soo baxo awoodnimada lagu helaa waa isaga dunida aynu ku metelnaa waa isaga marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga budiga saldhiga iyo aasaaska dawladnimadeenuba waa baarlamaanka marka wax la aqbali karo ma aha in markasta marka baarlamaanka yimaado la yiraahdo 3 sano markuu shaqeeyo albaabada ha loo xiro waxaan ugu hambaliyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna habeenadii dhaw sida u shaqeynayeen waynu ogeyn markii maqribkii rawaxaan way isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baatiin dastuurka saldhig oo shuruucda dalka ugu sareeya hay'adda dawladnimada ugu sareysaana waa idinka ha aqbalina in la idinida 3 sano markaa jirtaan kala taga 10 ninna masiirka dalka ha matalaan 10 nin sharciyada dejiyayaal ha noqdaan 10 nin siyaasadda dalka ha hogaamiyaan budiga dawladnimada Soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeyii idinka awoodda aad nasiiseen baan ku shaqeynaa idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku shaqeeya idinka awoodda aad nasiiseen baa ra'iisul wasaaraheenu ku shaqeeya awoodda aad nasiiseen baa xukuumaddu ku shaqeysa mar walbana inaad la xisaabtantaan u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tiraahdaana idinkaas kale ilaa baarlamaan la soo doortay uu idin bedelo dawladnimada dalka iyo calanka Soomaaliyeed iyo qarannimadeena baarlamaan oo saldhigiisu waa idinka hayeelina in kala taga la idin yidhaa
ودلانكي هو يدي دلمدا بري مينو أقبلناتا برلمانو إذن كأنه أحسن لك مدحوينها يدولة نمرين يدمانتين ويسود بربر تاجنهاي شقدي نقبصدا شروع إنه وضع جارسية ضلكن دورشة هالقف إياها القضاء إن دقائق هيرجشوا دولة دنوا فلين يسوون كل رقمينا شروع ده أساس أرتين وابن هتسنتي وقت بدن قادم مايو